بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الصوماليد ميلة joogtaan ba ilaahay subxaana wa tacaala idinku amaayeelo ciddii dhibandhibka allah ka qaado, ciddii dan la allah woofiyo, inta baahan allah deeqo, inta bogta allah bogsiiyo, intii dhimatay allah u naxariisto, waalidiinteena allah u naxariisto, annagana allah nooga daba naxariisto, dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaana wa tacaala inoo badbaadiyo. Maanta waxaan ka hadlayaa warqadda ka soo baxday golaha isimada SSC ee ku taariikhaysan bisha 7 labaatankeedii 2023 sanadka ah, kuna magacaaban warmurtiyeed uuna ku saxiixan yahay afhayeenka golaha isimadu Garaad Cabdisalaan. marka koowaad qodobo dhowran ka oranaya. marka koowaad waa warqad sax ah oo aan been abuur ahayn, kana soo baxday golaha si wada jir ah iyo midnimada ku soo baxday. intaas waa xaqiiqada jirta oo dhabta ah ee warqadda ku saabsan. qodobka labaad, warqadani waa cadaadis siyaasadeed ama nafis siyaasadeed oo ay raadinayaan koox rabta inay ka falceliso hadalkii Garaad Jaamac Garaad Cali uu ka yiri Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, oo garaadku ku eedeeyay madaxweynaha qodobo dhowr ah. warqadani waxaad moodaa inay ujeedadeedu tahay in hadalkaa laga daba tago. ujeedadeedu intaasay ahayd. qodobka saddexaad waa su-aale, warqadani ma gudbisay fariintii ay xambaarsanayd? aragtidayda may. intaanan aragtidayda fariinta aanan u gudbin, warqadani waxay muujinaysaa laba qodob: in la kala aragti duwanaan karo, walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuka. ilaahay subxaana wa tacaala ayaa yiri bini aadamku ma midoobo, aragti kuma midoobo ilaa intii ilaahay u naxariisto iswaafaqda mooye. walidaalika khalaqahum, rabbi saas u abuuray inay kala afkaar duwanaadaan. soomaalida waxay tiraahdaa maan rag waa mindiya mudacyo afkood. laba mudac afkooda qofkii isku daya inuu iswaafajiyo, labaduba intay isdhaafaan bay labada gacmood ka mudaan. macnaha aragtida waa lagu kala duwanaanaya. wax nin la toosan baa nin tuur la leh. waa qodobka labaad ay muujinayso waa majority siyaasadeed. garaadadu inay ilaalinayaan ayna ka go-an tahay midnimadooda haba kharaaraatee. arrintaasi ammaan weeye. waan jeclaa garaadka hadalkiisa inaan laga daba tegin, maxaa yeele xaq buu ahaa, wuxuuna ku dhisnaa xaqaa'iq jirta. ay ugu weyn tahay shirki igad wixii madaxweyne xasan sheekh uu ka soo saaray isagoo Soomaali matalaya. wax Soomaali qabtana ma ahayn, Soomaalinimana ma ahayn, treason bay ahayd, dembi khiyaano qaran ah ayay ahayd. madaxweynahana lagu eedayn karo anytime oo loo baahdo. maxaa yeelay nin raba inuu dalka kala jaro buu isagoo dalka u dhaartay kii uu la dirirayay ama kala dirirayay arrintaa ayuu simaya madaxweynuhu. ujeedadeedii warqadani ma gudbisay? aragtidayda maya. maxaa yeele labada qodob ugu horeeya, midda koowaad oo ah waxaan u raaligelin siinaynaa dowladda federaalka, waxaan ka raaligelinaynaa inuu ku eedeeyey garaadku inay la jiraan dadka wax duqeynaya oo ah Somaliland iyo Muuse Biixi. qodobka labaad baa iyada burinaya oo wuxuu leeyahay waxaan ka codsanayaa dowladda federaalku inaanay nasimin annaga iyo nimanka wax duqeynaya, nimanka dalka kala goynaya, inaanay dowladda federaalka garab siin. haddaan xasan ahay oo aan labadaa akhriyo, warqadaasi raaligelin iima noqoteen. marka fariintii ay xambaarsanayd oo nafis siyaasadeed ahaa ma aanay gudbin. iyadana waa mid. waxay kaloo ay sheegeen in madaxweynaha ay uga mahad celinayaan gurmadyadii uu u fidiyey dhaawacyada. nin walaalkii ihii la yiri hoog allah baday bay Soomaalidu ku maamaadaan. nasiib darrada Soomaalidu ku dhacday wey. ammaanna kuma leh, mahadinna kuma leh, ma garanaysaa xaq lagu leeyahay qofku inuu guto.
waxaad arkaysaa siyaasiga Soomaaliyeed wuxuu ku kaambeyn gareeyaa mushaharkii baan bixiyay dhaawac baan daawiyay adeer xoolaha aad leedahayna mushahar kuma aadan bixin xaq la lahaa oo la shaqaystay bixinteedana ammaan maaha laa shukr cala alwaajib shaqa aad lahayd oo aad qabsatay oo adiga lacag lagugu siiyo inaad qabsatid inaad haddana dadka ammaan kaga raadisid waa iska nasiib darrada ummadda Soomaaliyeed ku dhacday iyo dowladnimo aqoon la'aanta ina haysata iyo quusta aan kaga jirno adeegyadii dowlad xaq loogu lahaa dowladda laguma amaano ee hawsheeda qabsatay iyo shaqadeeda inta markaan iraahdo waxaan ku celinayaa halganku kaftan iyo ciyaar maaha xasan sheekh inta uu garaadku ka sheegay ayaa ku sifaysan yahay waxa u dheer in badan oo kamid ah dowladdiisu intaas oo bilood oo xabadi socoto dadka xabada ridayay laba jeer oo marna ra'iisul wasaaruhu yiri ciidamada laga saaro marna ay golaha wasiirada warqad xoogaa hadalkeedu adkaa ay soo saartay labadaba xasan sheekh ba ka dabatay oo baabiyay cunaqabatayntii la saaray 4 nin oo nina uu yahay wasiirka difaaca saddexna ay jeneraaliyiin xasan sheekh baa ka hortagay ra'iisul wasaare ku-xigeenkiisa muddo 2 jeer ah ayuu u gafay marna isimada uu ku eedeeyay dagaalka meesha ka dhacay marna uu taageeray meesha iyo gobolka iyo tolki uu ku taageeray dowlad marna kama hadlin waxaan arkaynaa oo kale dowladda federaalka ahi weligeed ammaan iyo aamus kamaanay helin musabixi iyo dowladdiisa cambaar baa u taagnaan jirtay wada shaqayn bay muujiyeen raalli inay ku yihiin waxyaabaha federaalku ay ka samaynayaan sool iyo sanaag iyo cayn ayay muujiyeen restraining bay muujiyeen inay isxanibeen oo iska xayireen hadalladii xanafta lahaa inankayn waaba ku dheeraaday wuxuu dowladda federaalka ay kuma jirto dadka dhibka nagu haya muusana golaha wasiiradu ka yiri horey baan u sheegay inay dowladda federaalka ay dhankooda tahay dowladda federaalka xasan baa hogaamiya marka qadiyadaasi waa qadiyad dhab ah oo jirta oo cad oo aan u baahnayn ma garanaysaa dhaqdhaqaaq yaryar oo aan naf lahayn hadalka garaadku tan kale waxbuu taray halganka qayla gardhoweysa baa leeyahay xasan xaq baa loogu lahaa inuu dhaqdhaqaaqo waana dhaqdhaqaaqay markaa kadib ka hor maya qawda maqashi waxna ha u qaban waa markuu ugu roon yahay inaanu dhib nagu hayn bay ahayd markuu ugu roon yahay haddii halkaa la dhaafana halgankaa dhib buu ku hay marka ninka la yiraahdo garaadkuna kelmadda uu ku yiri dhariga waxaa la yiri waxaa kulaylka ka keena waa karka nin odaya bahdiis iyo beeshiisii la baabi'inayo madaafiic iyo rasaas joogta ahi ay dul taal lagu khasbayo oo laleeyahay ma tashan kartid ma gaari kartid aragtina ma yeelan kartid siyaasadeed go-aanna ma gaari kartid waa lagu arriminayaa ogolow dhibkaasna dadkiisii iyo beeshiisa uu ku dhacay reerkaasna u weyn odaygoodiina dareenka uu muujin lahaa unbuu muujiyey ninkii intaas raba inuu wax ka hooseeya halganka ku raaligeliya xasan sheekh wax halganka ka hooseeya ama ah mansab siyaasadeed ama ah dakhli shakhsiyadeed ama ah yani waxyaaba laba saaxiibtinimo siyaasadeed ninkaasi wuxuu ka hooseeyaa levelka jamaahiirta iyo halganka iyo halgamayaasha SSC uu ka hooseeya waa warqadaanina fariintaa ma gudbin mana gudan warqad kastoo ay qoraanna ma gudbin karto mana geyn karto laakiin garaadadu waxay muujiyeen midnimadu inay uga muhiimsan tahay waa qodobka keliya muuse iyo ismaaciil ay meel kasta u mareen meel kastana ay uga laabteen inay buriyaan warqadaana loogu talagalay inay hormuud iyo hordhac u noqoto marka waxaan ku ammaanayaa garaadada midnimada waxaan ugu baaqiyaa hadalkii iyaantii hore aan iri midnimadaanu idinku raacsannahay iyadaanu idinku taageeraynaa ummaddu hadday midowdo wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu ku kulma xaqa iyo ilaahay subxaana wa tacaala waddadiisa ku kulma oo ku midooba ha kala teginina
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. آيدي سورة الأنفال كجرتين آيهاي haddaad murantaan iskhilaaftaan ood kala tagtaan awooddiinna dhumaysa. ha iskhilaafinina ha murminina si aydinan u kala tegin, awooddiinnuna u dhumin, cadowgana idinka faa'iidaysa. maanta halganku meel fiican buu marayaa. garaadada waxaan ugu baaqiyaa iska ilaaliya, ka digtoonaada. dhexdiinna kelmad timaadaa 15 sano bay qaadatay. dhexdiinna kelmad timaadaa baa 15 sano ka hor laga shaqeeyey. markii lagu guulaystayna 15 sano ka hor wixii dhacay baa laydinka samaystay. meeshaas indhaha ku haya, halkaa indhaha ku haya. gacmo geer jira hoos baa loo dhaqaa. afkaarta khasab maa inaa ku midowdaan, mana midoobi kartaan, bini aadan baa tihin. laakiin haddaad inta tashataan dhinac ay rajaxnaato danta dhalinyaradii halkaa ku dhimatay oo ku geeriyootay iyo kuwii haldoorka ahaa oo culimada lahaa oo cuqaasha lahaa oo haweenkii raggaba lahaa ee lagu laayay wixii ay u le'deen ilaaliya. hala ilaaliyo halganka midnimada Soomaaliyeed iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed baa ku xiran halgankaasoo guulaysta. shakhsiyan marka personally ha ka fiirin aniga maxaa dan oo iigu jira. garaad suldaan ugaas caaqil qofkaagan duubka u ah ama ninkaagan duubka ah magacaa doontaba lahawe noo ah madaxda iyo qiyaadada, arrintaa ilaali. intaasaan odhanaya. wabillahi tawfiiq. dhalinyarada waxaan leeyahay warqadani mushkilo weyn male, halgankana waxuma geysan, bal waxbay tartay. waxay muujisay xasan wixii lagu eedeeyo garaad ku eedeeyey in laga wada aaminsan, xataa kuwa la tacaadufsan inay ka aaminsan yihiin. war hana simin, war ha nooga hiilin nimanka. garaadku wuxuu yidhi wuu nooga hiilinayaa, ayaguna waxay war inaad ha nooga hiilin. ninna hadal waxaa la yidhi oodi jiidis iyo qaadis was la gurigeyn. fariintu waxay tahay xasan inuu dhanka kale u badan yahay bay labaduba muujinayaan. marka mushkilad warqadu ma muujin. garaadkana waxaan magac ahayn uga kordhimayaan warqadan iyo horumar iyo garaadada kale oo dhan. isimadoo dhan warqadan waxaa uga kordhay inay yihiin dad bisil, iyagoo kala aragti duwanna wax isla soo saari karaa, warqad isla qori karaa. kudos bay yiraahdaan luqadda ingiriisku. hambaliyo. salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.